magaalada Buuhoodle ayaa maanta lagu qabtay shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen cuqaal odayaal dhaqameed siyaasiyiin ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa lagu taageeray maamulka Khaatumo iyo siyaasadiisa ku aadan wada hadallada Soomaaliland waxaa kale oo shirka lagaga soo horjeestay shir dhawaan isimadu iclaamiyeen inuu ka dhaco Buuhoodle shirka oo qodobo afar laga soo saaray waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray nabadgelyada gudaha iyo midda darisyada iyadoo loogu baaqay dadku inay u midoobaan nabadgelyada deegaanka iyo midda darisyadooda waa kuwan mas'uuliyiinta hadallada isaga dambeeyay oo dhammaantood si isku mid uga hadlaya ujeedada shirkan nabadgelyada midnimada ku gelanaa adduunka ay ugu dhexdhexaadinaya sida wabillahi tawfiiq iyo badan Khaatumo waxaa la samaystay maamul saddex iyo tobankii ganaadba way saxeexeen 205 caaqil baa saxeexay waxaan marka hore leenahay maamulkaasaan anagu leenahay haddaan nahay Sool iyo Sanaag iyo Cayn isagaanu taageersanahay shirka hiblada ka dhacay waxay ahayd hadduu shir la qabanayo in dadka lagala tashado Sool iyo Sanaag iyo Cayn weliba gobolka Buuhoodle inta hiblada lagu qabtay baagara wala aad kaasi anaga baan loo sheegay shirkii wada inagu nabad baynu rabnaa wada hadalka waxaa weeye Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo iyadoo laba maamul ay wada hadlayaan danahooda waa ka wada hadlayaan inagoo gudboon oo aynan ku hoosay maan ka hadlaynaa Hargeysa iyo Burcaaminda laga wada hadli maayo adduunka lagu wada hadlayaa saddex dawladood adduunka inoo garnaqaya haddaynu qaadano qaybteena waliba aynu ku cadnahay waa hagaag haddii la diido dee waxaynu nahay Khaatumo midaysan shirkii lama burburin karo wuu soconayaa cidaynu dirano ee u garanno yaynu qabanayna waxaa meesha looga baahan yahay midnimadeena in laysku tiirsanaado dadkuna is aamino iskuna kalsoonaado nimanka iglada ku shiray inama matelaan innagaa diiday kuwa ninka yidhi Buuhoodle shirku qabayna gobol baanu dhigaynaa go'da tidhi ee aan lagu midaysnayn la wada lahayn goosha iyo shirka la wada lahayn kaasi been buu sheegay waa dad Buntland u shaqaynaya waa dad federaalka iyo Puntland qarashay bixisay raajicinaya weeye mana yaali doono kii tayax lagu burburiyey ee weli daawadeedii lala yahay madficii tayax lagu dhuftay iminkana gobolka ay lagu soo jeediyey ma aqbalayno mana aqbali doono Sool iyo Sanaag yaan laydin soo lugoyn ka fiirsada miisaan iyo walays baad leedihiin waxaan bulshada gobolka ay isku raacsanayn waa waxba kama jiraan ka fiirsada lagu soo degdegina ugu horeyn qodobka ugu horeeya ee shirkan ka soo baxay in la sugo midnimada iyo nabadgelyada guud ahaan Sool Sanaag Cayn gaar ahaan gobolkan Cayn qodobka labaad waxaanu ka soo horjeednaa faragelinta qaawan ee uu nagu hayo maamul goboleedka Puntland annagoo ku hadlayna afka shacabka gobolka Cayn waxaanu taageero buuxda u nahay maamulka Khaatumo iyo shirkii ballacaad lagu qabtay go'aankii ka soo baxay waxaanu ka digaynaa shir lagu qabto gobolkan Cayn oo aysan ogeyn waxgaradka gobolka Cayn marka ugu horeysa in la sugo nabadgelyadiisa ay iska kaashano sida loo sugi lahaa nabadgelyada qodobka koowaad Khadar Cawl Ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee Universal Buuhoodle